ee labadan jilaa oo labadooduba ay yihiin laba qofood oo mid kasta xaas meel degana halka Shayruqan uu qabo Gawri Khan Kajalna ay tahay marwada u dhaxda Ajay Devgan. Su-aasha wariyaha noocaas oo kala keenay ma ahayn mid munaasab ku ah inuu weydiiyo labadoodaba. Ha yeeshee Shayruqan markii su-aashaasi la weydiiyey si degan ayuu kaga jawaabay isaga oo lagu tilmaamay inuu yahay aabbaha dialoga iyo deganaanta aan weliba ku degdegan su-aalaha qaarkood ay saxaafaddu ku xaqdo. Waxa uu yidhi Kajal waa gabar aan jeclahay, waa gabar aan saaxiibanahay, waa gabar aan marna ka maarmin buu yidhi. Ma ahan buu yidhi qofka si kastoo aad u jeceshahay inaad adigu guursato. Guurka waxyaabo ka fiican ayaa idin dhex mari kara buu yidhi, balse guurka waxyaabaha uu sababo waxaa ka mid ah qoftii aad jecleed ayaad guursatay deetana waa aad furtay buu yidhi. Halkaasina waxaa ka bilaabanaya buu yidhi burbur iyo kala tag iyo murugo horle buu yidhi, iyo qofkii kala nacayb u qaadaa. Laakiin aniga iyo Kajal buu yidhi xiriirkeena ka dhexeeya ma ahan mid nacayb abuuri kara inta aan dunida korkeeda saarannahay. Wariyihii oo yaaban ayaa waxa uu damcay inuu su-aal kale ku soo celiyo, balse Shayruqan oo su-aashii hore ee uu weydiiyey aad uga caraysnaa si deganna uga jawaabay ayaa waxa ay ku noqotay lama filaan. Waxa uu Shayruqan yidhi intaas su-aalaha ku ekaadaan buu yidhi, balse waxaan idiin sheegaynaa buu yidhi dhammaantiin inta saxaafadda isugu timid ee meesha ku suganba aniga iyo Kajal waxaan nahay laba lamaane, waxaan nahay laba saaxiibo, waxaan nahay laba jilaa, waxaan nahay dad ku midaysan buu yidhi in marka ay filim wada daadihinayaan qaabka ugu wanaagsan inay soo bandhigaan. Laakiin wax kale oo intaasi sii dheer oo qarsoon haba yaraatee ma jirto buu yidhi. Kajal waa la qabaa oo waxaa qaba buu yidhi Ajay Devgan, anigana xaaskayga waa Gawri Khan, ubadna waa ii haysaa buu yidhi, waad wada garanaysaan. Laakiin haddii hadalka la laalaabo oo aad moodid buu yidhi in waxaan meesha oolinba la raadiyo, wixii idin soo baxaba waxay noqon doontaa buu yidhi waxaad idinka aad ku guban doontaan. Jilaagan waxaa la yidhaahdaa marka ay noqoto dhanka Kajal aad ayuu u difaacaa, waxa uuna jecel yahay in Kajal sumcadeeda la ilaaliyo sida ay iyadaba u jeceshahay in sumcadda Shayruqan la ilaaliyo. Ajay Devgan oo seegeeda ah xitaa marar badan waa uu ka masayray, laakiin markasta waxay isku daydaa in ay seegeeda si degan wax u fahansiiso iyada oo la sheego inay Kajal iyo seegeeda Ajay Devgan aysan dagaalkooda iyo khilaafaadka soo dhexgala aysan marnaba noqon kuwa saxaafadda usoo gudbo oo ay saxaafaddu baahiso. Waxaana tan lagu tilmaamay inay Kajal tahay agtarad amaba shaqsi caqligeeda uu aad u sarreeyo, waayo ma dhicin isku dhac foolka foola oo toosa oo dhex maray Ajay Devgan iyo ninkeeda, inkastoo muramo badan ay dhaceen samaynta filimkii Kabikushi Kabigam oo lagu eedeynayay Shayruqan waqtigaasi in Kajal uurkeedii in uu soo rido uu ku talagalay. Ma dhicin masayr zaa'id ah, wax kasta oo uu markaasi Ajay Kajal kala kulmo iyada ayaa si degan u qancinaysay, halka Shayruqanna Gawri Khan marka ay ku muranto isaguna uu si degan u qancinayay. Waxaa lagu tilmaamaa xiriirkii atirishada caanka ee Priyanka Chopra iyo Shayruqan waxba kuma aysan qaadan Gawri Khan inay soo afjarto amarna seegeeda ku siiso Shayruqan inuusan dib dambe Priyanka Chopra filin ula daadihin. Ha yeeshee Gawri Khan kuma aysan dhicin mana awoodin in Kajal iyo Ajay Devgan, Kajal iyo Shayruqanna niraahde ay kala mamnuucda inay filin wada sameeyaan. Waana sababta keentay kalsoonida buuxda ee ka muuqata Kajal iyo Shayruqan dhexdooda inaysan cidina dhexgeli karin. Daawadayaal, barnaamijka aynu kaga hadlaynay su-aashii ahayd Shayruqan ma jeclaan lahayd inaad Kajal nolosha la wadaagto, intaas ayaan kusoo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax, halkaad ka daawanayseena waa Saxafi Films. Daawadayaal, markaas subscribe tirahdaan gambareelka riixa si barnaamijka Saxafi isla markaasba idinku soo dhaco. Fikirkiinana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta comments-ka ee isla Saxafi Films. Inagoo isku duuban oo apaada Saxafina waxaynu dhammaanteen